maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bishii tobnaad 2020 waxaanu soo qabanay 10 harimacad 10 ka harimacad oo ay nagula jireen ama nagu hawlgalka ay nagula jireen wasaaradda deegaanka waxaananu ku soo qabanay meesha la yiraahdo xeero harimacadada oo ahaa kuwa kotarabana lagana ganacsanayay kii ka ganacsanayay aanu hayno kii gurigiisa la geeyay aanu hayno waxaanu u sheegaynaa dadweynaha ka ganacsada xayawaanka inay tahay mamnuuc inay tahay xaraan meel labana aanay ku baxsanahayn ayaanu u sheegaynaa waxa kale oo u sheegaynaa dadka u qarinaya ama gaadiidka u qaadaya iyagana inay la mid yihiin ka siday inay la mid yihiin ninka dambiilaha ee aanu ku hayno tiraba 3 jeer oo hore maxkamaddu waa ay ugu xukuntay xayawaankan tiraba 3 jeer bay ku xukuntay maxkamaddu maantana waanu ku haynaa kan ku wareejin doonaa maanta wasaaradda deegaanka oo uu nagala joogo agaasimihii guud wasaaradda deegaanka oo kaashanaysa ciidanka booliska waxaan gacanta lagu soo qabtay eedeysanayaal iyo 10 hareemacad oo sifo sharci darro la doonayay dalka looga saaro subaxdii hore ayaa wasaaraddu waxay heshay oo warbixin ku soo gaadhay in niman kamid ah kuwa caadeystay oo ay wasaaraddu ku soo qabatay mudaba 3 jeer 4 jeer maxkamadduna ku xukuntay oo nin caadeystay oo ka ganacsada duurjoogta marka runtii wasaaraddu waxay ku guuleysatay inay gacanta ku soo qabatay iyadoo kaashanaysa ciidanka 10 hareemacad oo la doonayay in xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhoofiyo runtii dadka warbixinta na siinayay waa bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland marka tani waxa ka mid tahay in hawlgallada wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ku jirtay ay kula dagaalamaysay dadkan duurjoogta sifaha sharci darrada dalkeena uga saaray fariintay wasaaraddu halkan aan bulshada uga dirayna waxa weeye wasaaraddu mar walba waxay heegan ugu jirtaa sidii loo badbaadin lahaa duurjoogta duurkeeda laga soo qaadayo marka fariintan bulshada Soomaaliland u dirayna waxa weeye muwaadin duurjoogta ku ilaali duurkooda waa khayraadkii dalka waa nimcadii dalka sidii taliyiga horeeyay uu halka ka sheegay waxaan hawlgal u wada jira maanta oo bilaabmay kowdii duurnimo ee maanta aanu ku soo qabanay 10 harimacad oo si sharci darro looga ganacsanayay ninkaasi wuxuu muddaba ka ganacsan jiray xayawaanka la yiraahdo harimacadka waxa uu dhoofiyaa waddanka la yiraahdo Yemen imkana qorshuhu waxa uu ahaa in berito subaxa haddii alla idmo ay ka dhoofiyaan xeebaheena iyadoo halkaas uu diyaar ahaa ugu imanaysay lash Yemen laga soo diray runtii waxa guul u ah inaynu eedeysanayaashaas gacanta iyo sharciga magarasa lagu soo dhigay sharcigana la horkeeni doono si dhaqso ah biidmillaahi kariim waxa kale oo iyadana booliiska iyo wasaaraddu si wada jira isu kaashanaya ay 23 bishii September ay sidaas si lamid ah soo qabteen eedeysanayaal kale oo iyagana iyagoo gacanta ku haya lagu qabtay harimacado ay si sharci darro doonayeen inay uga ganacsadaan eedeysanayaashaas waxay imika hor joogaan oo la horgeeyay processkii dacwadooduna ka socdaa maxkamadda degmada Hargeysa waxaan ku rajaynaynaa in si degdeg ah sharciga iyo ciqaabta ay u qalmaan la marin doono eedeysanayaashaas hore iyo kuwan maanta la soo qabtayba waxaan bulshada u sheegaynaa xayawaanka harimacadka la yiraahdo iyo dhammaan duurjoogta in laga ganacsado in la haysto in la ugaarsado inay dhammaan sharci darro tahay cid kasta oo lagu qabto iyagoo faldambiyeedyada gacanta kula jirana waxaa lala tiigsanayaa sharciga dalka uga yaal oo ciqaab adag marsiinaya waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba bulshada u sheegaynaa mar walba waad aragtaan wasaaradda deegaanka anagoo ordayna oo kuura bahalaynayna oo bari ilaa galbeed soconayna xayawaanka soo badbaadinayna waxaa dadaalkaas iyo juhdigaan u bixinaynaa sidii duurjoogtaas iyo xayawaanka ilaahay ku oomay dalkeena ee khayraadkeeni ah ee aynu u leenahay hidaha iyo dhaqanka sidii loo badbaadin lahaa bulshada waxaanu ka tuugaynaa oo aanu marti uga nahay inay nagala shaqeeyaan oo ay garab nagu siiyaan sidii dambiilayaashaas caadeystay inay ka ganacsadaan ama waxyeeleeyaan duurjoogta sidii sharciga loo horkeeni lahaa ciddii aragta
cid faraha kula jirta faldambiyeedyada ama ka ganacsanaysa ama ugaarsanaysa ama guryaha ku haysata fadlan la soo xidhiidha wasaaradda deegaanka la soo xidhiidha xarumaha booliska iyo maamulada gobollada ee idinku dhow